وقتها هذا حفص الدكان كذا كسب بحسا شنتي يبركي قلب نما هيت حلي جيسك أفريقيا ساعد مركز شنتي يبركي بهد دكان كذا كسب بحسا قبل الدبس عطو وقبل بقول كي بس سجاشن يسجال لقش كي قبو إن أي كدم بيسي أفتوم كقبلها وأنا قبل الصوماليات سيدا إذن موقته نينك أباقي سفيري سؤالك ميس نينك سي أباقي سا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا دي سلامي لمان شعبك الصوماليات ميرول بأدون كايتك جوكتان سوى الباو مقال لأي موقعيقو إذين سوء غاريو ولكن عبد الله مع الحسين وأكواد السعوتان channel كان قروح ذا كويس كتير ولا ليال وربضان ومان صوفر سلمانت أنا كأهين مروغو يولول أسو هيدي شعبك الصوماليات كل رقم magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda isla ee Soomaalida u badanta dalka Kenya ba iska dheh murugo u soo hoyatay baan rabaa xogaha inaan isla tataabano sida la socotaan waxa baraha bulshada shalay gelinkii dambe la soo galiyay gabar Soomaaliyeed oo laga afduubtay goobteedii ganacsiga iyadoo ka soo baxayso gurigeedana u socota gabadha sida la socotaan waxa ay ka soo baxday dukaankeeda oo macnaha waxa weeyaan uu ku yaal xaafadda isla dhaxdeeda gurigeedana u socotay waana xilliyada suuqyada la soo xiro afduubkan gabdhaha Soomaaliyeed loo geysanayo marka laga soo tago wiilkii Soomaaliyeed ee ganacsadaha ahaa inta la afduubtay meel ka baxsan magaalada meedkiisa laga soo helay ninka Allahu naxariisto marka laga soo tago 5 qof bay hadda maraysaa 4 gabdhood iyo wiil bay maraysaa 4 gabdhood iyo wiil bay maraysaa oo afduub ah madax furashana loo sheeganayo gabadhaas si xun baa loo dhibaateeyay aad baa wallahi loo dilay ma la fiirsan karo wajigeeda aad baa wajiga looga dhibaateeyay community garden awgeed looma soo dhigi karo halkan wajigeeda waayo muuqaalada noocaas ee argagaxa leh bulshada lama wadaagi karo waayo shuruucda YouTube-ka u degsan baa diidaysa in halka la soo dhigo muuqaaladeeda laakiin sawiradeedii caadiga ahaa intii aan la afduuban ka hor noocan ay ahayd gabadhaas Soomaaliyeed iska shaqeysato xamaalata xoogeeda ku shaqeysata bay ahayd warkay haday mar dadkii Soomaaliyeed badii ku haysato mar ay siyaasiyiin kala dilayso oo laalushi iyo baqti ay kala siinayso mar diyaarada inta soo qaadato ay duqeymo u geysanayso shacab Soomaaliyeed oo waxba aan galabsan haddana waxa weeyaan waa arkaysaan waxa lagu sameeynaya dadkii Soomaaliyeed ee magaalada deganaa ma waxa loo dul qaadan karaa ma aha haddaba markan waxaan rabnaa inaan dul istaagno walaalayaal hawshani ma dad Soomaaliyeed baa ku lug leh mise Kenyaanku ayagu baa iska maagay in dadka Soomaaliyeed ay dhibaateeyaan waa su'aasha inta badan ka dhex guuxaysa dadka Soomaalida isla weydiinayaan waayo boqolaal sano bay Soomaalidu meesha base ku lahaayeen oo ay deganayeen maxaa koos gareeyay waqtigana ku soo beegay in dad Kenyaan ay afduubtaan dad Soomaaliyeed bal hadda gabadha sida idin muuqata dukaankeeda ka soo baxday ninka laga shaki qabo in falkan uu ku jirana waa ninka meesha fadhiyada arkaysaan muuqaalku idin kugu soo celinaya waa in yar oo CC camera ay qabato waa idin kugu soo celinaya ninka meesha fadhiya naakal la hadlaya telefoon ku mashquulsan yahay gabadha dukaanka markay ka soo baxday waa idinka arkayo dukaanka markay ay ka soo baxayso waxa daba socoto gabar kale gabadhaas kale boqolkiiba 99 in ay Soomaali tahay baa la aaminsan yahay gabadha daba socoto gabadha afku indhahu u xiran yihiin okay marka u fiirso way daba socotaa ninkay u baaqaysaa ninkay gadaal u fiirinaysaa way soo gudubtay ninkii bay gadaal u jalaacaysaa u fiirinaysaa ninkii uu fiirina way soo istaagaa marka sawirka u fiirsada sawirka tartiib baan idin gaabi markaysaa okay slide baan saaray gabadhan ugu horeyso waa gabadhii la afduubtay tan fiiri marka waxay sameynay gadaal ay fiirinaday waxay sameynaysaa aragday fiiri gadaal bay fiirinaday ninkay u baaqaysaa ninkana waa soo istaagayaa وفيرت وادي كوسو علي مركل هذانا ويف جلعت هذانا كذال هذانا واكنا وادي كوسو علي سيفي عن أوجبكتها سيفي عن وفيري سيدا مركو اسكو صار دقاجو سو استاجايو بكاميرا دوجو إسا سو مركا قبضنا أفضوب كذا الصومالي وأيكوجرتا والله إن هذا نوجه هذا فيرين كرين قبل أسد الله قله مقالة هذا تكسر دوبين سيدي مجفاء وكلا ده مجفاء اسكت عنا سما نظام كي مجفاء باكبل لعبتي إسلي مجفية أتقنين قبلها الصومالي أنت مقالة كسر دوبان أيضا رجع دبرك لقى ساريو لقراعيو مقالة لقى سر دوبي أو ضدك العكس اللي هو يدي سنة
baa ka bilaabatay Nairobi dhexdeeda. Gabadha inta la jir dilay, la dhibaateeyay, la garaacay, gacmaha iyo lugaha dhaacay loo geystay, saal isugu xiray, indhaha loo xiray, baa video inta laga duubay familigeeda loo soo diray. Ayagoo markaas codsanaya lacag 5 milyan oo lacagta Kenya ah. Ina $50,000 u maleynaa haddii aanan qaldaneen oo xisaabtu iska keedaba marin. lacag inta la eg baa la codsanaya hadeertan waa madax furasho waa dhibaato iyo musiibo runtii u soo hoytay waalidiin soo marka waxaan rabaa inaan idin dul maro hal mar oo aan idin sheego wiilkii ganacsadaha ahaa kadib dadka la waayay oo la afduubtay oo sidaan oo kale u baqan walow ayaan dhaweetay gabar ayadan dhanka iyo mamaas inay tahay aan filayo haddii aan qaldaneen laga soo helay ayadoo toori lagu wareenay oo si aad loo jirjiray la soo helay kadibna dhibaatadii soo gaartay awgeed u dhimatay marka laga soo tago dadka ay dhibaateynayaan ayaan rabaa dadkan ay dhibaateynayaan baan doonayaa marka inaan idin la wadaago tan hadda waa gabadhii ugu dambeysay ee muuqaalkeedu baraha bulshada aadka u dhex yaalay gabadhana kamid ah dadka la waayay oo iyadana sidaas oo kale loo afduubtay Xafsa Cabdi Wahaab baa la dhahaa labada gabdhood ba Xafsa la dhahaa tan Xafsa la dhahaa ta kalena Xafsa la dhahaa waxa kale too hadan la waayay nin da'diisa lagu qiyaasay waa ninka idin muuqda 35 sano jir inuu yahay isla markaasina magaciisa lagu sheegay Maxamuud Maxamed Xaaji waa intii wiilkii ganacsadaha Soomaaliyeed la dilay kadib ninkan hadda waa 24kii bishii May baan u maleynaa inay tahay taariikh ahaan haddii aanan qaldaneen markii la waynayay oo isagana afduubka uu ku maqnaa gabar kale ayadana haddana jirto oo sawirkeedu iga maqan yahay dhibaatadaas jirto marka dhibaatadaas jirto magafayaal noocaas oo kale ah baa u soo baxay dadkii Soomaaliyeed ee ku noolaa magaalada Nairobi adigoo Kenya ba iska wada dhig maadaama ay caasimadii tahay de waa Kenya oo dhan hadii Nairobi nooca dadkii loogu galayo gobolada kale maxaa ka sugaysaa waa ma jirto gabadha aad baa loo dhibaateeyay madax furasha looga baahan yahay waa gabar Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah iska shaqeysata dukaankeeda iyadoo ka soo baxaysa oo cidna aan waxba u geysan sawirkeeda adinka arkay gabadhaas weeyaan cid wax ka galabsatay malaha gabar Soomaaliyeed oo da'daas ah ilaah baan kugu dhaariyay sawirkan nooca idin kugu muuqda markii muuqaalka laga soo duubay oo familigeeda loo soo diro la yiri madax furasho 5 milyan baan u baahanahay tagyiirka ku dhacay gabadha inaadan mareysan karin wajigeeda aad fiirin karin mawduul qaadan kartid mana fiirsan kartid wajigeeda waa gabar Soomaaliyeed gabdhihii marka haddii rag Soomaaliyeed ay dalkii Soomaaliya ku dhibaateynayeen Kenyadii ay nolosha ka soo raadsadeen noocaas bay hadeertan ku bilaamatay meel loo dhaqaaqo oo kale ma jirto anigu marka ka Cabdullaahi ahaan markaan fikirkayga ku darsado falkan anigu ma aaminsanin in Soomaali ay ka lug baxsan tahay Soomaali falkan waa ay ku lug leedahay ma dhicayso gabar oo dukaankeeda ka soo baxday in inta la qabsado hadda waa isli dhaxdeeda dukaanay ka soo baxday meesha lagu haystana markii lagu fiiriyay GPS ka lagu raadiyay waa meel ka baxsan magaalada oo meel magaalada ka baxsan baa la soo ogaaday inay joogto markii GPS ka lagu raadiyay bal dukaankeeda qof ka soo baxay inta la afduubtoon gaari la saartay wax sahlan ma aha barnaamijkan waa in dib u baarid badan lagu sameeyaa oo dib loo baaraa in Soomaali ay ku lug leedahay in kale waa in dib loo ogaadaa waayo sidan nolol ma aha si aadaba wallahi gabadha loo dilay qof damir dam qadale ma daawan kara sawiradeeda ma fiirsan karo waxaan dhahna ma naqaan meel aan arin iyo tala ka qaadnana ma naqaane ilaahay subxaanahu wa ta'ala gabadha Soomaaliyeed masaakiinta ah dadka cadawga ay u gacan gashay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka soo daayo meel loo dhaqaaqay is la yeela male lacag 5 milyan oo lacagta Kenya ah ayaan u baahanahay madax furasho ah waa magafa caadi weeyaan wallahi sawiradeeda markii saa loo soo galiyay baraha bulshada oo aan arkay aad iyo aad baan oga naxay wallahi waa imse qofad wiilkii la dilay ka sokow 5 bay hadda maraysaa 5 waa afduub caadi oo maalin walba joogta sidan marka si ma aha walaalayaal sidani si ma aha waa in dadka Kenya jooga ee Soomaalidu isku tashadaan haddii markii hore la isku maqnaa nin walba qabiil uu ku maqnaa maanta idinka la idin soo dhigtay oo gabdhihiina inta hortiina lagu afduubto baabuur inta la saarto madax furasho la soo dalbanaya waayo gabadha magaalada Nairobi islii oo aan naqaan
زحمة الصومالي ذو يكون هيسو إيه سيدا يودع بوحان دكان كذا وان ترتيب كسو بحضي إسلام مركبة أنت اللي قبصدي قاري اللي صارتو وسهلا معها أرنتا وأرن في جنان بدن أباهن وأرن أباهن دتك الصومالي ذو إنه يأد وقف جنادان يأدنا إيش أقوه هيان هل كأي عجوه هذا الدجيان إسكانه ورقبان سيدنا ده سمع هني سيدني سمع قاري سلوش كصباح أذكر أنتو ألف ستريت قارين هل لو أفضلتو وهل سوى هو هذا شيء إن نقدم قناة وشيء مهمة شيء أذو مهم ويان وإن نقرب يستغنى قبل قابكي معناها وحويان لمن كتوجد عدو جاء لوجو سودان لها لوجو سودان لها أنا واحد يقول مقالة أصل فاميلي كده وإيشاجن تلفون كمركي جي بي إس كلوجو باري وحل وجادي إن أي نمن كاسو جوجن ملك بحسن مجال ده كدنا تلفون كي أي دنسدين بإذن الله الكريم لو حرجينا إن قبل أسمع المها صوص عضة أن أركي دونا أيضا عافمت قبته ودب رير كده أولا مذودي هذا يبقى نوع شايبة ده هذا يبقى نوع شايبة قف نوع على لود دباتي نوع على لود جردلي ونوع على لود دلي إلى ما هم بيننا نلقوا سيجاري دونتي إلهي سبحانه وتعالى قبلها أوصل فضيه أدب أمها سنتين مقالك أنت كبدن ما بس يودي كره أنت أنكلم إذا دبي سوق الله من دونه وحنا ذيك جت يعني بتقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.